fariintaasi waxay ku saabsan tahay adduunyada dee nin waliba wuxuu ilaashadaa wax laya masaalix marka xagga adduunyada leegayo waxaanu fariintan u diraynaa xukuumadda uu hogaaminayo Siilaanyo iyo xisbiga kulmiye oo ishuwan marka hore waxa weeyaan arrinka inanka agaasimaha ahaa Muuse Abubakar Suudi ee muddada bisha ka yar joogay Caynabo arrintaa ku dhacday aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu leenahayna taa abaalmarinteedu waxay noqonaysaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadda Siilaanyo hogaaminayso ina ku weydaan taageeradii beesha xisbiye kalena aanu ku soo dhaweyno beesha way kaga faa'iideystaan jaaniska annagu maanta waxaanu aad u dhaleecaynayna aad baanu u dhaleecaynayna inanka yar ee 10 habeen aan meesha joogin waxa uu naleeyahay inankii meesha horu joogay wallahi inaan 10 habeen joogeen baa buuli lambar baa meel igu dhagan waa laga sheegayaa inanka ha lambar yaa meel igu dhagan lambarkii muuqay lambarkii deer xaashimo noqda iminka waanu soo jeesanay iminka liqi kari weynay maanta markii inanka yar ee agaasimo waaxeedka ah ee meesha jooga rag isu duwaha waxa weeye halka 10 habeenaan joogin wasiir u faytay ee ka eriyay shaqadii waanu yaabno waxaanu niri dawar waa la isu soo galay shir degdeg ay loo qabta leeysa soo gali mikee waxaanu hadaba leena waxyaabo fara badan oo aanu hore u tirsanaynaana way jiraan ka bedelay ee kula kaca iyo xumaanta inta la keenay inanka bisha aan joogin soo celiyay inankii kale waa ina xaashi dadkana wuxuu ku sheekayn doonaa heer degmaan ka dhigaya heer gobol baan ka dhigaya macquul ma aha gobolada dhexda siiday dad oran doonto gobol baa Riyo Sadraxmaan oo idin ka dhigo inankaas ka soo dhiga tiyaadir bal gobadana siida meesha la yaab haashina siidaadii ood weyni wax macquul ma aha waa isu duwa yar buha waxa muruqiisa iyo xoogiisa wala kala baxayna xaashi waanu kugu haynaa waa kugu mahadnaqaynaa waana kugu caaymeena kugu mahadnaqaynaa waana waxa noo dheer adeer berbera gobolka Sanaag tog dheer Hargeysa Sool midna beeshu mudnaanteed had kama hayso xusbiga kulmiye u malayn maayo inuu beeshu codka ayaa ka hadlaya maanta markaanu ka hadalnay waxa nagu kalifay xaqii aanu ku lahayn dawladda iyo deegaanka waanu ka weynay laga bilaabo hadda xusbiga kulmiye iyo xukuumadda Siilaanyo si degdeg ah uga tashanayna wassalaamu calaykum beelaha bariga habar jeclo waa madaxda sildarada ugu sareysay weeyii intaanu ku hadnin ay saamigooda kulmay waa madaxtinimada horta ninkii madax noqday saamigiisii lun saamiga habar jeclo aanu kaga weynay ama Somaliland waa sildarada guud waanu ku xishoonaa tifiyada kama hadallo xaasha lillah saasaanu taladeedu ay ahayd wax saami badan baa naga maqan halkan waxay ka cadeynayaan maanta firinta gudbinaya waxay tahay maanta wixii dawladdiisa Axmed Maxamuud Siilaanyo hogaamiye garwadeenka ka ahaa wax badan bay Soomaaliland u qabatay horumar bay wadanka gaarsiisay odagu xaga iyagu ahaado wixii dadka kale u jeedinayay intaasaanu ku sabayn laakiin meelaha markii wax naga soo gaaraan hadii anagina isboobno oo isu noqono hadii xumay qolo ay sii waxaysato waxa laga bedelo laga noqdo maalmo cidii arintaas samaysay ha ka noqoto maalmo hadii laga noqon waado sidii ragiiga horeeyay ay sheegeen waxa weeye maanta xusbiyada tartamayo dalka tartamaya xusbiyadu nin waliba dad buu doonayay reerku wuxuu ka tashanaya kulmiye ayuu ka tashanaya wuxuu ka yeelayo iyo meeshu uu guurayo ayuu ka tashanaya reerku hadii taa maanta wax laga qaban waado inanka isu duwa hadii wax laga qabanaysa aad isagoo reerku wax tirsi horo fara badan tirsanaya oo tabasho badan tirsanaya oo wax la'aan tirsanaya kulmiye ka tirsanaya ayaa maanta tan dhacday inanka waxaan leeyahay arintiisa xukuumaddu waxa ka qabsidga oo qabato hadii laga qaban waadana sidaan hore u sheegay ama ragga hore u sheegeen reerku uu ka tashanaya ka mahad celiso annaka aan ceebaynayn madaxweynaha iyo ku xigeenka toon wasiirada ka hooseeya hanafarka ka daayay ninna magacaabi mayno wayna hoos u fiirsata hoos
السلام عليكم ورحمة الله. كهره horta waxa la yiraahdaa cayuu caliyo cabashana waa liidnimo caban mayno anagu oo hadaan yoonisnahay sidaasaan noo galo oo waxaasaan laga qadiy oo waxaasaan loo diiday dawladda iyo xukuumadda waxaan weydiinayaa dalku mar ra'iisul wasaaru leeyahay mise hadii xukuumadda madaxweyne ku xigeenaya madaxweyne buu leeyahay waxaan u arkaa inuu ra'iisul wasaare uu ninkii madaxtooyada la geeyo uu noqonayo wasiirka la sanaa uu isagoo amrayo taasuna khalad weeye jira waxa weeye wasiir kala siman hadii la amro oo meesha sharci darro lagu maamulo sharci darradu way muuqanaysaa inankii yaraa ee bisha shaqaynayay ee lagaga keenay dusha haddana aan reeriyoon iskeenin cid kale keenin xukuumaddu ay keentay haddana bil isagoo aan shaqaynin dikreeto madaxweyne baa lagu bedelayaa